shaqaynayno in amniga caasimadda uu hagaago waxaa dhacaya maanta ugu dambaysa waxaa dhaceen laakiin waxaa badan inta la qabanayo ama inta laga hortagayo ka tiro badan shayga dhacayo marka amnigu meel fiican buu marayo ku rajaweynahay howlgallo badan oo tiro badan baa socda ciidamada badan oo si kala duwan u shaqeynaya magaalada ku jiro shaqeynaya dadaal badan iyo juhdi badan waayahay banaanbaxyadii rabshadaha watay muqdisho ka dhacaya ka waran banaanbaxyadu waa wax iska dabiici adduunka dhan waa ka dhacaan wax caadifada keento waay hadday wax dhacaan dadku emotional waa laab kacaan banaanbaxyana waa dhacaan laakiin waxaana soo gaaraya dacwooyin aada u tiro badan oo dad shacabay sheeganayaan in hantidoodii la burburiyey in la baabiyey xoolo ay lahaayeen iyo wax lamida marka waxa banaanbaxu sidiisuba sharcigu muxuu ka qabaa annagu boliisaan waanu aaminsannahay in aanu in allaal intaanu joojin kara aanu joojin oo ku dadaalno laakiin khasab ma aha banaanbaxu markuu dhacayo inaad guri dad leeg u dhacdo inaad qof bakhaarkiisa burburisid inaad qof hantiisa uga tagtid macnaha waxa waa lagu soo dhex dhuumanaya dad badan oo dambiilayaala oo noocyo kala duwan ah oo kuwa cadow ay ku jiraan aan ummadda naxayn xitaa ay ku jiraan inay ka faa'iidaystaan banaanbax yar oo dadka ay caadifada ay qaada ay soo baxeen waxaan ka oran lahaa oo keliya waxaa weye in aynu ka raacno sidii sharcigu qabo banaanbax qofka muwaadinka waa loo ogoliyo sharcigu waa ogoliyo laakiin modalityga loo baahnaa iyo processkii loo baahnaa ayaa loo baahay in la maro waa iska soo banaanbaxaya maaha banaanbaxu wuxuu baahay markaa sharciga fiiriso in aad soo sheegtid ama guddoomiyaha degmadu soo sheegtid ama guddoomiyaha gobolka markaas aad ka soo qaadatid ogolaashaa ka soo qaadatid inaad sheegto meeshaad banaanbaxa ku qabanaysid inaad sheegto taariikhda aad qabanaysid inaad sheegto cadadka tirada kaaga soo qaybgelaysa si amnigaagi loo sugo waa iska soo baxaya oo dad baa meel soo keena xitaa maaha banaanbaxu noocaasu sharcigu u tilmaamaya in loo maro ayaa ila haboon annaga wixii intaa dhaafsan waa sharci darro waay sharci darrona qofka waa la qabanaya taas waxay dan u tahay ummaddan amnigeeda maanta waxaa si kooban sharaxaad inooga siisaa howlgallada xilligan soconaya iyo falkii xalay mid ka mid ah maleeshiyaadka qawaariijta ee al-shabaab al-qaacida ee xalay degmada wartan gaar ahaan xaafadda calakamiin ciidamada amniga gaar ahaan ciidamada booliiska kusoo qabteen warbixin kooban inaga sii arrinta iyada waxaan mahad gaar u celinaynaa shacabigii degmadaas oo iyagu gartay in ay booliiska u tilmaamaan gurigii uu ku jiray meeshii loogu tago dadkii laga badbaadiyo dhibaato badan oo ninkaas geysan lahaana laga qabto isagana meesha lagu soo qabtay waa isla shalay laba dhacdo kala duwan labada dhacdaba shacabka waxay ka qaateen kaalin xoogle marka aada iyo aad baan u bogaadinayna shacabka waxay tusaysaa kalsoonida shacabka ay siinayaan ciidamadooda amniga waxay tusaysaa shacabka inay qaateen ciidankan inuu u taagan yahay habeen iyo maalin inuu iyaga amnigooda iyo noloshooda iyo maalkooda sugo aad bay noo farxad gelinaysaa tii shalay dhacday waxaana rajaynaynaa insha allah inay sii xoogaysato weliba oo dadka muwaadin kasta u garto waxaa ciidanka booliisku u taagan yahay habeen iyo maalin uu shaqaynayo in ay tahay amnigiisa inay tahay shacabkuna ay qaataan inay amniga isaga wax ku darsadaan iyagana waya shacabka inay booliiska la shaqeeyaan hay'adaha inay la shaqeeyaan door ceenka ilag ay ka qaadi kartaa nabadgelyada dalka amniga caam ahaanba shacabka iskale amniga dalka iskale dadka iskale ummadda iskale amniga booliisku ma laha amniga ummadda iskale booliisku waa adeegayaal way booliisku wuxuu xoojiyaa keliya shuruucda dalka u dhegan inaan lagu xadgudbin qof bini aadana inaan hantidiisa la dhicin naftiisa dhibaato la gaarsiin taas waa shaqada ciidanka booliiska way laakiin amniga waxaa iskale ummadda iskale qof kastoo muwaadin oo soomaaliyana waxaa loo baahanya inuu amniga wax ku darsado amniga maanta meeshan u taagana wax iska soo baxa mahay waa buluketi saar waynu ognahay shalay maanta maaha maanta meel fiican bal maraya amniga waxa way ummadda iyadaa iskale iyadaa wax ku darsata iyadaa ilaashata iyadaa ciidankeeda la shaqaysta iyadaa tuuga soo qabata iyadaa furta ku fiiqda meeshay isleeyihiin amniguna ku khaldayay marka waa dhowr jeero horna waa laga hadlay waa mas-uuliyad wadareed waay dadku inay saa u qaataana fiican ciidanka booliiska iyo ciidamada amniga sugaana dhammaantood inay dad khidmaynaya oo ku dadaalaya inay fuliyaan ama kor u hayaan shuruucda dalka u dhisan oo kow ka yahay amnigu ka mid yahay kow waxaan kaloo raacin lahaa amni haddaan la helin oo ummaddu dalkan in amni aan lagu soo dabaalin mashaariicda kaletana waa curyaansantay mid siyaasad ha noqoto mid dhaqaale ha noqoto mid maaragtay biyogelin ha noqoto ama caafimaad ha noqoto wax kasta amniga ku xiran amniga ayaa number one ah amniga marka inaynu wada sugno inagoo dhan qarannimadeena iyo qoomiyadda ummadda soomaalida ku jirta
ugu dambeyn taliye maxaa fariin u diraysaa shacabka shacabka ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqi lahaa in ay amnigooda sugaan in ay qaataan qarannimo iyo dowladnimo inay qaataan kala dambeyn iyo nidaam dawli ah kan aynu ku wada dhaqana kaas way kan aynu ku horumari karno kaas way kan aynu ummadda kale kula xisaabtami karno aynu oo dowladaha kale inuu qab ku yeelan karno han ku yeelan karno waa qarnimadii dowladnimadeena way waxaan qabaa marka inaan shacabka kula taliyo inay amnigoodana ka shaqeeyaan ciidamada habeen iyo maalin u taagan inay u shaqeeyaan u khidmeeyaana ay gacan ku siiyaan sidii amniga loo sugi lahaa taliya lama tanta